su-aasheedu waxa ay tahay sida tan lacag ayaa bangi dhigtay oo ku yaala dalka Kenya lacagta waxaa ku kordhaysa bishii 5% waxaana ogahay in lacagtaasi ay ribo tahay welina maanan isticmaalin mana rabo inaan isticmaalo haddii aan lacagtan bangiga ku dhaafo waxaan ka baqayaa in kaniisada lagu maalgeliyo mise diinteena suuban lagula dagaalamo sheekhow bal ka waran haddii lacagtaasi aanu siiyo dad qaraabo ah oo dhiban anigoo xasanaad ka sugaynin madaaris la dhisayse ma ku darsan karaa lacagtaas alxamdulillaah horta lacagta inay ribo tahay inaad ogtahay wax weyn wey waxa wanaagsan inaad isticmaasho inaadan doonaynin hadda korna isticmaalin lacagta labada khiyaar ee yaalla inaad u dayso iyaga iyo dad ka soo qaado dadka iyo danaha guud iyo dadka baahan inaad siiso wey khiyaarka dambe aad sheegtay baa saxan waase haddii adigu markaad soo qaado aad qabta kalsooni adiinayna kugu fakanaynin haddii aadan qabin kalsooni ah in adiga kugu fakanaysa aadan aamin ka ahayn sharki iyo balada qori dheer baa la iskaga qabtaa ee meesheeda ku dah ciddii isticmaashaa dembigeeda gelaysa haddiise ilaa xad kalsooni aad qabto ama malahaaga ay u badan tahay inaad iska ilaalin karto ood masaakiin iyo dad baahan iyo madaaris iyo dana guud ku bixinaysa way bannaan tahay meesha doonaya ka timaadee xooluhu xaraam hadday yihiin masaalixda guud iyo masaakiinta baahan baa iska leh in lagu bixiyo iyaga xaraam kumaaha ribana kumaaha wabillahi towfiiq